xogta tiro hoobiyaal ah oo maanta lagu garaacay qaybo ka mid ah garoonka aadan cadde iyo xerada xalane iyo faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo khasaare kala duwan oo ay geysteen hoobiyaashan. muuqaalkan ayaan idinkula wadaagi doonaa, balse marka hore muuqaalkan laag saar, sina sheergaray, naguna soo beer mahadsanid. warar kala duwan ayaa kasoo baxaya saakay hoobiyaal lagu garaacay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho iyo xaafado ku yaala degmadooda jir ee gobolka banaadir, kuwaasoo jugtooda inta badan laga maqlay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho. sida ay inoo sheegeen ila wareedi xilkasa ilaa iyo 6 hoobiye ayaa lagu garaacay xerada xalane iyo garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho. sidoo kale hoobiyaashan ayaa sida la sheegay waxa ay ku dhaceen qaybo ka mid ah xerada xalane oo ay ku dhex yaalaan ama ay degan yihiinba hay-ado caalami ah, safaarada shisheeye iyo taliska ciidamada AUSOM. madaafiicdan ayaa sidoo kale lasoo wariyey in qaarkood ay ku dhaceen xaafado ku dhow garoonka, waxaana jira khasaaro u badan dhaawac kuwaasoo soo gaaray dad shacab ah oo aan waxba galabsan. mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in hoobiyaashan ay kusoo dhaceen xaafadda kaabagoday oo ay ku dhaawacmeen 2 qof oo kale ahaa haweeney iyo wiil dhalinyaro ah oo ka mid ahaa dadka xaafaddaasi degnaa. xaafadda kaabagoday waxaa saaka ku dhacay mid ka mid ah hoobiyaashii lasoo tuuray, waxaana ku dhaawacantay maamo ka mid ah dadka deegaanka, waxaana sidoo kale la sheegay wiil kale oo dhaawac ah, ayuu yidhi mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlayay warbaahinta. sidoo kale waxa uu tilmaamay inay dareemeen cabsi xoogan oo soo wajahday kadib markii hoobiyaashan ay maanta kusoo dhaceen qaybo ka mid ah xaafadda kaabagoday. dhanka kale ma jiro wax hadal oo kasoo baxay laamaha amniga oo ku aadan hoobiyaashan maanta kusoo dhacay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho. shalay ayay ahayd marka sidan oo kale hoobiyaal tirabeel ay kusoo dhaceen qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir iyo agagaarka madaxtooyada qaranka, waxayna geysteen khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. sidoo kale dhowaan ayay ahayd marka qaybo ka mid ah gudaha magaalada muqdisho ay kusoo dhacayeen hoobiyaashan noocan oo kale ah, iyadoo garoonka aadan cadde uu kasoo degayay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed.